bismillah soo dhawaada shabakada Sayax Teach oo aad uga barateen idin soo baahayso cilmiga teknoolajiyada waxaynu casharkan qaybtiisa kaga hadlaynaa sida 3D loogu sameeyo farta Photoshop-ka daawasho wacan waxaynu tegaynaa Photoshop-kan soo furanaynaa kadib waxaan tegayaa file kadibna new waxaan daaqada ka dooranayaa nooca aan u baahanahay ee uu yeelan doono interface-ka ama shashada hodhow isoo baxaysa custom baan leeyahay kadibna waxaan ka dooranayaa halkaas waxaan ka dooranayaa 700 halkan 600 anyways aadu baahata waa dhigi kartaa kani waa kaliya waa example okay sidaas baa isoo baxay waxaan ku qoriyaa qoraal Sayax Teach farta weyneenaya kadib intaan highlight gareeyo dib waxaan ka dhigayaa 32 kadib halkan aan imanaya color-ka u bedelayaa halkan aan ka dhigayaa kadib waxaan leeyahay okay kadib waxaan leeyahay okay apply soo qaadaya halkan waxaan sameyn karaa sidoo kale edit inta tago aan dhaho kadibna free transform ama control T ayaad xagan ka weyneyn kartaa xagana ka weyneyn kartaa kor u qaadi kartaa hoosna wad soo yar dhigi kartaa okay Sayax Teach qaabkaas marka uu qortid waxaad sidoo kale sameyn kartaa inaad farta wax ka bedeshid adoo arrowga hoose karabaya ama ka wadaya adigoo arrowga hoose ka wadaya farta marba tiyaas leedahay aad ay qurux badan tahay ayaa adigu dooqa u deysanaysa okay kaas baan deenayaa ka soo qaad waxaan tegayaa kadibna waxaan tegayaa meeshan ay ku qoran tahay fx kadibna waxaan dooranayaa drop shadow waxaad aragtay xogaa yar harharaynu soo galay kadib xogaa waan ku darayaa kana xogaa waan ku darayaa distance badan yar ku darasa iyadana xogaa yaraan laga fahmaynin kana sidoo kale siis xogaa oo ka yareynaysa yaraan aad loo fahmo halkan farta waa ka bedeli kartaa waxaa ka dhigi kartaa casaan den xogaa soo wad xaggan kor u yara qaad adiga ayaa laga rabaa in aad si qurux badan soo saartid baartaan kadibna waxaa leedahay waxaynu aragnaa hadda fartan inay qaab 3D ah tahay oo afarta gees baad saaran haysta afarteeda dhinacba aad arki kartid design-ka iyo nashqada iyo wixii qurxin aad ku dirdirsanaysid adiga ayaa sameyn karaya oo afraha kaga qaadaya
kadibna waxaa leeyahay okay intaas ayaad u deynaysaa.